mucjisooyin waaweyn ayaa ka dhacay maalintii ugu dambaysay ee horyaalka ugu shacbiyadda badan shanta horyaal ee laga ciyaaro qaaradda Yurub waxaana ay ahayd isbuuc lagu ogaaday in Manchester City aysan dhiman marka ay joogto Etihad sidoo kalena lagu yaqiinsaday in waqtigan aan laga soo helaynin dunidan laacib u dhigma kan loo doortayba midka ugu wanaagsan fasalkan ee Premier League Kevin wuxuuna ahaaba xidiga ku guulaystay inuu dhaxda ka jibiyo mucjiso kasta oo ay u socotay Aston Villa indhaheennu nama qiyaani karaan isla iyaga ayaana qiraya inuu yahay xariifkii xariifyada iyo basmadhibihii qarnigan haddii isaga uusan ahaan lahayna waaba loo baqay City libaaxa sidiisaba ma qarsoomo si kasta uu ugu tilmaamay macallin Pep Guardiola inuu yahay mid itaalgabay Ilkay Gundogan isaga ayaaba noqday midkii afka libaax kala soo baxay City oo ku dhawaatay in horyaalnimada England ay ku wayso iyadoo joogta fagaaraheedii Etihad taariikhda ayaana xusi doonta habdhawaqa ay ku gabeen taageerayaasha Man City ayayna ku bilaabatay ciyaartii xaragada lahayd oo goolkii koobaad waa tii lagala hormaray waxaana u xigtayba in gool kale uu u raaciyo Philippe Coutinho marka ayaana loo garawsaday in macallimu Steven Gerrard iyo laacibkiisa Philippe Coutinho ay u qabanayaan Liverpool shaqa ay u qaban waayeen intii ay joogeen Anfield waayo natiijadaasi waxay Liverpool ka dhigaysay inay noqoto horyaalnimada Ingiriiska laakiin waxaa la iloobay in City aysan dhiman marka ay joogto Etihad duufaantii kooxaqaadka ahayd ee Manchester City ayaana hal mar kacday labadii gool ayaana loogu bedelay Aston Villa saddex kale mid ka mida waxay ka timid Rodri oo la helay shabaqoodii darbad toogasho fog ahayd halka labada kale uu ku farayaraystay Ilkay Gundogan haddii City ay ku tirina koox raadso isaga ma noqon mid hagraday sida ayuuna ku galay diiwaankii dahabiga ee taariikhaha kooxda magaalada Manchester Man City ayaana sida loogu caleema saaray horyaalkeedii sideedaad ee kubadda cagta Ingiriiska sidoo kalena noqonaya midkeedii lixaad ee tan iyo markii la bixiyay magaca Premier League halka Pep Guardiola uu noqdayba tababarihii ugu horeeyay ee British aan ahayn kubadda cagta Ingiriiska ee ku guulaysta 4 horyaal oo heer sare ah sidoo kale Pep waxaa loo calaamadeeyay inuu yahayba tababaraha labaad ee ugu guulaysiga badan horyaalka Premier League maadaama uu hantay markiisii afraad oo kaliya waxaa ka sareeya waqtigan Sir Alex Ferguson oo horyaalka ku guulaystay ilaa iyo 13 jeer Liverpool waa dadaashay waxaana horyaalkan ay ku waysay kaliya hal dhibcood ciyaarteedii ka dhacday Anfield waxay 3 gool iyo gool ku soo dhaaftay Wolves inkastoo Liverpool lagala hormaray goolkii koobaad oo waxaaba taageerayaashoodii kaga naxsaday Neto hase yeeshee waxaa goolka soo celiyay Mane halka sidoo kale 2 gool oo kale ay kala raacsadeen Mo Salah iyo Robertson hase yeeshee kooxda kal ciyaareedkan uu u noqon rabay mid ceebeed isla markaana way lahayd tartanka Champions League iyo sidoo kale Europa League waxay noqonaysay Manchester United oo gool iyo waxba ay kaga soo tilaabsatay Crystal Palace waliba goolkaasi waxaa ka dhaliyay laacibka ay ku soo ciireen Old Trafford ee noqonaya Wilfried Zaha waxaana ay ku badbaaday kaliya in Brighton 3 gool iyo gool ay kaga badisay West Ham haddii West Ham ay guulaysan lahaydna tartanka saddexaad ee ugu caalamisan qaaradda Yurub oo ah mid aan la heeb garanaynin ayaa laga badigoobi lahaa kooxdii taariikhiga ahayd sidoo kale Arsenal iyadana waqti aan loo baahnayn ayay 5 gool iyo gool ku hasuuqday Everton laakiin guushoodii waxaba ka daba timid gool kale oo iqaa'ib lahayd oo ay gaadhayba kooxdii ay ku wada dagaalamayeen booska afraad ee Premier League oona noqonaysa Tottenham iyadana waxay 5 gool iyo waxba ay ku hasuuqday Norwich City waliba 2 ka mida goolashaasi waxay ka yimideen Son xogweyntii galbeedka London iyadana goor hore ayayba si xaqiiqsatayba inay u soo baxayso tartanka Champions League waxaana 2-1 ay ku hasuuqday Watford
waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixintan ilaa iyo dhammaadkeeda. waxaan ahay maxamed cabdirisaaq tolman.